ma nebi ka mid ah nebiyadii loo soo diray reer banu israa'iil mase qof mu'min ahaa oo ka mid ahaa akhyaartii xilligiisa. qisadiisa waxaa lagu sheegay 2 meel oo ka mid ah qur'aanka kariimka ah. suuradda al-anbiyaa aayadda 85 iyo suuradda saad aayadda 48 isaga oo lala sheegay koox nebiyada ka tirsan. alle qur'aanka dhexdiisa kuma sheegin faahfaahin badan oo ku saabsan dalkifli nabadgelyo korkiisa allah yeelay. waa nebi ku dhashay oo ku noolaa deegaanada shaam la isku yiraahdo ee bariga dhexe. qaarkood waxa ay sheegaan in uu yahay nebiga yahuudu ay aaminsan tahay ee lagu magacaabo xisqiyaal. sidaasi si la mid ah waxaa la sheegaa in uu ku dhashay dhulka ciraaq isla markaana loo diray si uu xaqa u gaarsiiyo dadkii deeganaa dhulka Syria. mufasiriintu waxa ay ku kala duwanaadeen in uu ahaa nebi alle soo diray iyo qof mu'min saalix ahaa. qaar ka mid ah culimada tafsiirka ku xeel dheer waxa ay sheegeen in dalkifli uu ahaa nebi ka mid ah nebiyadii uu alle adoomadiisii u soo diray si ay xaqa iyo hanuunka u soo gaarsiiyaan. alle waxa uu dalkifli ku tilmaamay in uu ka mid ahaa kuwo wanaagsan, dulqaadka badan ee samafalayaasha ah. waana qaar ka mid ah tilmaamooyinkii uu eebbe ku sifeeyey nebiyadiisa. alle subxaanahu wa tacaala suuradda al-anbiyaa qisada nebi ayuub nabadgelyo korkiisa allah yeelay kadib waxa uu daba dhigay ismaaciil, idriis iyo dalkiflina waxa ay ka mid yihiin kuwa sabarka badan. waxaanu gelinay raxmadeenna waxa ay ka mid yihiin kuwo wanaagsan. alle subxaanahu wa tacaala waxa uu dalkifli ku daray qaar ka mid ah nebiyada uu ku sifeeyey sabarka, dulqaadka, samafalka iyo wanaagga. waxaanu ognahay dulqaadkii nebi ismaaciil calayhi salaam markii lagu imtixaanay gowraca kadibna uu u hoggaansamay amarka rabbigiis oo uu u qoor dhiibtay aabbihiis si uu u fuliyo wixii la faray ee ahaa in isaga la gowraco. sidoo kale waxa uu ku sabray markii isaga iyo hooyadiis la geeyey dhulkii geerigo-anka ahaa iyo markii isaga iyo aabbihiis keligood ay isu xilqaameen dhismaha kacbada. nebi idriisna nabadgelyo korkiisa allah yeelay waxa uu ahaa nin guurguurid badan isla markaana cilmi iyo aqoon raadinaya. socodkaas iyo geediga joogtada ah mashaqadii uu kala kulmay ayuu ku sabray oo uu ku dulqaatay. warbixin hore oo aanu soo gelinay halkan ayaan uga sheekeynay qisooyinka cajiibka ah ee nebi idriis iyo sidoo kale qisada nebi ismaaciil calayhi salaam. aanu u gudagalno qisada aanu qaybtan uga sheekeynayno ee dalkifli calayhi salaam. ugu horeyn waxaa isweydiin mudan, maxaa loogu magac daray magaca dulkifli? maxay ahayd qisadiisa xiisaha leh? maxay ku saabsanayd arrintii dhex martay isaga iyo ibliis? meesha labaad ee uu alle qur'aanka dhexdiisii ku xusay dulkifli waa aayadda 48 ee suuradda saad isaga oo leh xasuuso ismaaciil, yasac iyo dalkifli dhammaantood waxa ay ka mid yihiin kuwa akhyaarta ah. culimadu sidoo kale waxa ay ku kala duwanaadeen aragtida ah dalkifli ma waxa uu ahaa wiilkii nebi ayuub calayhi salaam mise ma ahayn. waxaa jirta culimo qabta aragtida ah in uu nebinimada uga dambeeyey nebi ayuub calayhi salaam isla markaana uu ka mid ahaa asbaad. sidaas oo ay tahay ma jirto aayad ama xadiid saxiix ah oo arrinkaasi ka sugnaaday oo loo daliishan karo. laakiin isweydiinta ku saabsan ma waxa uu ahaa nebi ka mid ah nebiyadii loo soo diray reer banu israa'iil mase qof mu'min ah waxaa raajax ah ama loo badan yahay tan ku saabsan in uu nebi ahaa. culimada aragtidaasi dambe qabta waxa ay daliishanayaan in alle markii uu qur'aanka dhexdiisii ku xusayey uu magaciisii ku xiriiriyey ama uu la sheegay qaar ka mid ah nebiyada. sidaas darteed in uu nebi yahay ayaa halkaasi ka cad. aanu u imaano, dalkifli ma ahayn magaciisa rasmiga ah oo ay hooyadiis iyo aabbihiis ula baxeen. sababta dalkifli loogu bixiyena waxaa laga sheegay 3 aragti oo kala duwan. tan ugu dambaysa ayaana ah tan ugu dhow sax ahaanshaha. tan koowaad, ibnu saa'ib waxa uu yidhi waxaa jiray boqor dictator ahaa oo u istaagay in uu dilo 300 oo nebi. 100 ka mid ah ayaa ka badbaaday oo awooday in ay baxsato. dalkiflina waxa uu isu xil saaray in uu kafaala qaado nolosha 100kaasi nebi, wixii ay cuni lahaayeen, wixii ay cabi lahaayeen iyo meeshii ay ku hooyan lahaayeen
ilaa ay gaareen heer ay isku filnaadaan oo ay markan iyaga naftoodii daryeelaan. sidaasna loogu magacdaray dalkifli. aragtida labaadna abuu muuse ayaa yidhi, waxaa jiray nin 100 salaad maalintii dukan jiray. markii uu ninkaasi geeriyoodayna dalkifli ayaa kafaala qaaday in uu salaadahaasi dukan doono si aysan u joogsan cibaadada uu ninkaasi qaban jiray. aragtida saddexaad oo laga soo xigtay ibnu jariir waxa ay leedahay, waxaa jiray nebi ka mid ah nebiyadii loo soo diray reer banu israa'iil. waa nebi yase calayhi salaam oo qisadiisii aynu isla halkan soo gelinay warbixin aynu uga sheekaynayno. nebi yase alle waxa uu siiyey nebinimo iyo hogaamin. kadib markii ay ajasiisu soo dhowaatay ayaa alle uu u waxyooday nebi yase in uu ruuxa ka qaadi doono mar dhow. sidaas darteedna hogaamiyenimada iyo nebinimada uu ku arsaaqay in uu ku wareejiyo qof reer banu israa'iil ka tirsan. qofkaasi lagu wareejinayo nebinimada iyo hogaankaba waxaa waajib ah in uu maalintii oo dhan soomi karo, habeenkii ilaa uu waagu ka baryana uu salaad dukan karo, dadka doodahooda iyo waxyaabaha ay isku haystaanna u kala garsoori kara, isaga oo aan caroonayn islamarkaana dhibsanayn. nebi yasac waxa uu isugu yeeray qoomkiisa, kadibna u sheegay arrinkii loo waxyooday iyo in laga rabo qof sooc ah oo sifaadkaasi leh. wiil dhalinyar ahaa ayaa dadkii ka dhex istaagay, waa dalkifli. waxa uu yidhi, nebi allow, aniga ayaa isu xilqaamaya arrimahaasi aad soo sheegtay. qaar ka mid a dadkii meesha ku kulansanaa ayaa wiilkii ku yidhi, war naga fadhiiso, dadkaa waaweyn oo kaa mudan ayaa meesha fadhiya kadib inta codkiisii sare u qaaday ayuu 3 jeer ku celceliyey, aniga ayaa awooda shuruudahaasi oo hawshaasina qaban kara. kadibna nebi yase calayhi salaam waa uu ku qancay, wuxuuna ku wareejiyey hogaankii. muddo yar kadibna waa uu geeriyooday. dalkifli sidaasi ayuu ku noqday nebi iyo hoggaan dadkiisii xaakim u ah. dalkifli oo xilligaasi wiil dhalinyar ahaa ayaa dhexda u xirtay in uu dadkiisii u khidmeeyo, in uu u noqdo garsoore caadil ah, samafale aan dadkiisii kala xigsan, si hagar la'aan ahna ugu shaqeeya, nin cibaado badan, dadkana had iyo goor ugu yeera in ay rabbigood adeecaan, cibaadadiisana aysan wax kale la wadaajin. maalintii oo dhan wuu soomi jiray, habeenkii salaad ayuu u taagnaan jiray, marka uu waagu baryana qayb wakhtigiisa ka mid ah dadka ayuu ugu kala garqaadi jiray, kadibna saacado ayuu indhagaduudsan jiray. wuxuu ku sifaysnaa qof aad u dulqaad badan, aan sinaba uga caron doodaha iyo muranada dadka uu u kala garsoori jiray. wuxuu ku sabri jiray cibaadada iyo daacada alle. waxaa joogto u ahay dadkiis in uu ugu yeero cibaadada alle iyo jidka toosan. waxaa badnaa dadka inta adeecaysay ee rumaynaysay fariintiisa. taasna waxa ay ahayd natiijadii ka dhalanaysay sabarkiisa iyo dulqaadkiisa aan wax lagu qiyaasa jirin. abaalmarinta laga dhaxlo sabarka waa mid aad u heer sarreysa. alle addoonkiisa ayuu la jiraa inta uu addoonku yahay mid sabar badan oo dulqaad leh. dalkifli calayhi salaam iyo ibliis qiso ayaa dhex martay. ibliis waxa uu arkayay sida xaalka reer banu israa'iil uu u soo hagaagayay markii dalkifli nebinimada loo soo saaray. taasna waxay ahayd arrin aan ibliis farxad gelin, iskaba daaye holac hor leh ku shiday qalbigiisa. waxa keliya ee uu ku qaboobi karo waxay ahayd in uu arko dadka oo fasahaadsan, xaalkoodu uu murugsan yahay, xumaan mooye aan khayr ku dhex jirin. ibliis si uu dadkaasi shaqadiisii uga qabsado waxa uu shayaadiin u soo diray nebi dalkifli si ay u fidneeyaan, cibaadada iyo hanuunkana uga weeciyaan. shayaadiintii way kari waayeen hawshii looga diray dalkifli in ay ka soo qabtaan. markaas kadib ibliis ayaa ku yidhi, ninkan aniga ii dhaafa. ibliis oo isu soo yeelay muuqaalka iyo shakhsiyadda qof waayeel ah ayaa u tegay nebi dalkifli calayhi salaam. albaabka ayuu u garaacay. kadib dalkifli ayaa ku yidhi, waa ayo? ibliis wuxuu yidhi, nin da ah oo dulman. dalkifli ayaa istaagay oo odaygii ibliis ahaa albaabka ka furay. intaasi kadib ibliis ayaa bilaabay in uu u soo bandhigo eedo been ah. wuxuu yidhi, aniga iyo qoomkayga arrin ayaana dhex taalla. xaq aan anigu leeyahay ayay iga haystaan. waan u dulmanahay. waxaan doonayaa in aad xaqaygii iiga soo dhicisid. ibliis warkiisu ma ahayn mid kooban. sheekooyin dhaadheer, tusaalooyin iyo hadal aan xad lahayn ayuu ku maaweelinayay nebi dalkifli. dalkifli sidaan horey usoo sheegnayba, jadwalkiisa maalinlaha ah waxaa ku jiray saacado hurdo ah, maadaama habeenkii oo dhan uu cibaado ku soo jeedo. ujeedka ugu weyn ee ibliisna waxa uu ahaa in uu dalkifli cibaadada ka habsaamiyo. dalkifli saacadihii hurdadiisa maalintaas waxa uu ku sheegay sheekadii ibliis. wuxuu ku yidhi,
niyahow marka aan soo fariisto golaha aan dadka ugu kala garsooro ii imow xilligaas ayaan gartaada gelayaa ibliis uu iska baxay dalkiflina markii uu tagay madashii uu dadka ugu kala garsoori jiray ayuu raadiyey oo sugay odaygii ibliis ahaa si uu gartiisii u galo laakiin ibliis waqtigaasi ma iman goobta maalintii labaad ayuu haddana dalkifli golihii soo fariistay weliba isaga oo quudaraynaya in odaygii shalay uu u imaan doono si uu gartiisii u galo laakiin ibliis ma iman xilligaas dalkifli markii ay shaqadiisii u dhammaatay oo uu damcay in uu gurigiisii u hargalo ayuu ibliis albaabka soo garaacay waa laga furay laakiin dalkifli waxa uu ku yidhi sow shalay kuma sugayn maxaad golaha iigu imaan weysay ibliis wuxuu ku jawaabay qoomkayga ayaa i hagareeyey markii aan damcay in aan kuu imaado adoo shaqada ku jira ayay ugu dhaheen iska dhaaf annagaaba xaqaaga kuu ogol oo ku siinayna markii aan iska joogay oo golaha ka baaqsaday ayay haddana igu inkireen oo i dhaheen xaqba naguma lihid ee xaqayga ii dhici dalkifli waxa uu ku yidhi waayahee xilliga shaqada iigu imow golaha ibliis waa uu iska tegey maalintii xigtay ma iman golihii lagu ballamiyey markan dalkifli waxa uu adeegihiisii ku yidhi waan seexanayaa albaabkana cidnaha ka furin haddii lasoo garaaco dalkifli markii uu seexdayba waxaa albaabkii soo garaacay ibliis oo sidii hore oday isaga dhigaya adeegihii ayaa ku yidhi amar uma haysto in aan cidna albaabka ka furo ee iska noqo ibliis kuma qancin wuxuu sii watay doodiisa ah in albaabka laga furo adeegihii markii uu albaabkii furi waayey ayuu ibliis guriga toos u soo galay isagoo aan albaabkaba laga furin dalkifli ayaa shanqartii ku soo kacay wuxuuba arkay odaygii oo guriga dhex taagan iyo albaabka oo sidii u xiran durba wuxuu halkaasi ka gartay odaygan inuu ibliis yahay oo aanu ahayn qof bani aadam ah oo daacad ah wuxuu ku yidhi adiga miyaan ahayn ibliiskii uu alle lacnaday ibliis waxa uu yidhi haa waxaan rabay inaan cibaadada kaa habsaamiyo adiga iyo qoomkaagana aan idinkala irdheeyo oo fidno idin dhex dhigo sidaas ayuu dalkifli uga adkaaday ibliis dhagartiisana uga nabadgalay keliya sabar dulqaad iyo adayg uu kula hal adeegay cibaadada alle muddo ayuu noolaa dalkifli calayhi salaam sida ugu wanaagsan ayuu ugu khidmeeyey qoomkiisa waxa uu u ahaa garsoore caadil ah nebi har iyo habeen u taagan wacyigelinta dadkiisa ku sabra daacada alle ka sabra xumaanta iyo qallooca u dulqaata wax kasta oo dhimaal ah oo noloshiisa soo wajaha waxaa la sheegaa in uu ku geeriyooday dhulka shaam oo ah halkii uu ku dhashay kuna barbaaray isla halkaas ayaana lagu aasay da'diisa waxaa lagu sheegaa in ay ahayd 45 sano qisada dalkiflina waxaanu ka helaynaa cibro qaadasho iyo arrimo tusaale mudan intaas ayaynu ku soo gunaanadeynaa warbixintan oo aynu ku soo qaadanay qisadii nabiyullaahi dalkifli calayhi salaam tan iyo muuqaalka xiga oo aanu soo diyaarin doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaana allah halkan waa itaal media